السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي qaaliga meel kaste oo dunida daafeedaga joogtaan waa idin salaamay. waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada qalbi saafi ah, niyad idin jecel intaba kusoo dhawaada ayaan idin leeyahay. asxaabta qaaliga channelka ay ka daawanaysaan waa channelka Hoodama Channel. waxaan idin leeyahay hadii marka ugu horeysay aad soo booqatay ay tahay fadlan subscribe saar, like ta saar iyo sii share garay asxaabtaada la wadaag si asxaabta noogu soo imaadaan ama noogu soo biiraan. inta sadii aad sameysay waxaan ku leeyahay jazakallah. waa mar kale iyo qisadeena qaybteedii labaad. asxaabe kusoo dhawaada. qaybtii koobaad waxay inoo joogtay dhamaadkeedii wiilkii oo shaqo raadsaday iyo waliba gabadhii oo xaamile ah. waxaa dhacday wiilkii inuu shaqo helo. shaqo markuu helay waxaa dhacday shaqadii oo helay wuxuu shaqo ka helay bakaaraha suuqa bakaaraha ayuu shaqo ka helay dukaan oo lagu gado ama carwo oo lagu gado daahmanka maxaa la dhahay shimaacyada waxyaabahaas oo agabka guryaha lagu qurxiyo carwo lagu gado ayuu shaqo ka soo helay. wiilku wuxuu dhiganayay jaamacad ayuu dhiganayay. jaamacad markuu dhiganayay sanadka labaad ayuu marayay. sidii ayuu galinka oo jaamacadda aaday maahan marka galinka ilaa iyo galabta ayuu gadaayay oo xilliga dambe maadaama jaamacadda subaxii hore uu aadi jiray. waxaa dhacday dukaankii inuu wiilkii shaqo ka helo sidaas oo ku gado. waxay dhahday dukaankii wuxuu gado wiilkii oo halkaas maasha Allah nolosheen xidhada waa fiicnaatay hay iska noqotay. biilkeena halkaas aan ka helnaa waan iska ladnaanay waan isku filnaanay. markaan biilkeena waxaan uu ku filnaaday maadaama shaqeysanahay jaamacadiisa uu iska bixiyaa biilkeena maasha Allah mustaqafiyo uu noo noqday. waxay dhahday waa dhalay uurkii waatee uurka lahayd uurka ayay dhashay gabar ayaa Ilaahay siiyay. gabadhi markay dhashay maasha Allah nolosheedu maasha Allah iska tahay iska fiican tahay. waxay tiri maasha Allah wiilku wiil fiican sidii marka hore jaceelkeena mid lagu sheekaysto uu ahaa. markaan isguursanana wuu sii fiicnaaday. waan aad dad oo waxaa ahayn nolosha maasha Allah aad isku fahansan laba qof oo dad waxaa ahayn inta xaafada markaas uu maxaa dad lagu daysado camal uu roodal mool uu ahayn oo dhaho heblaay iyo hebel jaceelkooda camal ciyaalka xaafada waynu ku daysan jireen dhahday markii horeete oo aan iskuansan jirnay. markii dambena dad isqaba aan noqonay halka ayuu ka sii socday. jaceelkeena ma ahayn mid banaanka oo kaliya ku ekaay gurigeena dhexdiisana mid ka jiro ama mid markaas laga dareemayo ayuu ahaay. waxaa dhacday tiri ina aan yeesho uur labaad inaa yeesho uur labaad ayaan walacay dhacdo waxaan xanuunsaday uur ayaa laga soo helay dhakhtar leeyahay uur ayaa laga soo sheegay. uurkii labaad anigoo leh ayaa waxaa dhaceen tiri dagaaladii qaxi oo kala way yaqaan dadka xamar joogay fuuriyay oo qaxay oo amxaaradii maxaakiibta markay dhaxayeen dagaalkaas ayaa dhacay tiri waan qaxnay dhahday. waxaan tagnay ceelasha ayaan tagnay ceelasha biyaha ayaan u qaxnay dhahday. ayaga waxay deganaayeen baar waxa ay deganaayeen baar waxa degnay dhahday waa qaxnay halkaas ayaan degnay dhahday. dadku way kala qaxeen anagana waxay tiri waa qaxnay qaxii dadka qaxaya dhinac ka raacnay waxaa degnay dhahday halkaas. hooyo aabo ma aysan xagga ma aysan u qaxin waxay u qaxeen suuqa xoolaha iyo huwa meelahaas loo qaxay ay degeen. markay hooyo halkaas aaday anaga ceelasha ka dhaxnay anaga iyo waxa israacnay dhahday ilmihii walaalihiis oo dhashay iyo aabiis iyo kulli xagga u qaxnay dhahday meel oo goof oo dadka dhan wada degaayeen oo hal meel oo weyn oo ka camal ayaan degnay. waxay tiri laba guri iska soo horjeeda ayaan dhisanay loo dhisay qaarna ilmaha midna ilmaha degay midna anaga degnay. waxay tiri uurkii ayaan waxay tiri uurka ayaa markaas leeyahay uurka ayaan leeyahay labaad gabadhina way ii joogtaa. markii la qaxay waxay tiri markaan meel laga shaqeeyo malahan bakaari waxay tiri waa lagu kala qaxay dagaal ka dhacay ninkan waxa uu soo noqday tiri shaqo la'aan. waxaan sameeyay tiri miis ayaan ta asaasay oo qudaar soo gatay xoogaa yar oo waxay tiri awal aan lacag yar oo awal meel iigu jirtay ayaa waxay tiri 200 ahayd ayaa waxay tiri waxaan ku soo gatay qudaar iyo waxaas
guriga hortiisa ayaa meel oo dukaaman ahayd ayaa waxaan ka furtay dhahday miis qudaar ayaan saartay. sidii waxay tiri miiska maasha Allah waa ii bulaalay, miis qurux badan wuxuu ii noqday miis weyn oo lacagteeda kaala iska arag biilka ilmaha aan ka helo kaala iska arag nolosheen maasha Allah adeegeena saxidis ka gadanaa maasha Allah ii noqday. waxay tiri meesha miiska aan ku gato dukaamay laba dukaan oo yaryar wax saasay lahayd meel oo dadka labada dukaaman aad u waaweyn ma isahaynay tiri meesha qudaarta ku gado dukaamanka oo adeega kale lagu gado raashinka iyo waxaas maxay dhahday dukaaman yaryar ay ahaayeen. waxa dhacday meesha miiska ku gadanaan meel banaan ay ahayd meesha ayaa waxay tiri waxaan sameynay waxa aan dhahay tiri meeshaan aan ka sameysanaynaa dukaan weyn si miiska iyo dukaanka isku horgadano. meeshan dukaan weyn oo dhantay dukaan weyn aad ka siisanayna adaagadeysid maadaama asanin oo wax soo gadgadi jiro uu yahay meeshaan dukaan ka sameysanaynaa. okay waxa dhacday tiri aab inuu tago dhaabo ninkeyga meeshaas ayuu rabaa inuu dukaan ka dhigo xoogaa lacagna deemi oo ku soo celinayna hadhow markaa soo cadeeno lafahaga oo ku siinayna. sida waxay tiri aaba lacag mu soo siiyay waa ku soo adeeganay jinkad yar ku dhagsanay dukaan yana tub ka siisanay meesheenaas waxay tiri dukaanka hadana wuxuu noqday tarkaala arag dukaan oo maasha Allah iska bulaalo noo noqday. marka waxay tiri miiskii waa ii weynaaday inta dhisa miis weyn ka dhigay qudaartii soo badiyay hilib aan ku darsaday dhahday qudaar iyo hilib isku gadi jiray kaala arag ii noqotay. meesha waxay tiri uurkii waxay tiri markaan ii soo weynaad uurkii waa dhalay gabar ayaan dhalay tiri haddana uur ayaan yeeshay wiil ayaan uurkiisa yeeshay tiri wiilka ayaa markaan uurkiisa leeyahay dukaankiina maasha Allah noo yahay miiskina sidoo kale waa gadaaya kaala iska argaa markay nolosheena noqotay dhahday dad waxaa noqonay tiri ayaga iskoodu istaaga markaan oo ganacsado oo kala aragay ilmaha gabar yar shaqaale ayaa ii haysa guriga cuntada igu kari jirtay xaameesh iyo noowan isku dhawaayeen dukaanka iyo meesha miiskii dukaanka horta way isku horyaaleen laakiin xaafad iyo isku dhawaayeen aad iskugu dhawaayeen iyo meesha wax u gadano dukaanka iyo miiska noogu yaalo oo isku dhawaayeen ilmaha waa la soo kormeeraa mar ana soo aado asaa isku sii gado marna asaga soo aado oo ana isku sii gado. waxay dhahday dad waxaan noqonay isku tiirsan oo maasha Allah ayaa noqonay lafahooda ciyaalkooda iyo noloshooda wuxuu maasha Allah ku dhakan oo ku filan ayaa noqonay. halka waxay tiri xitaa ilmihii oo asaga walaalihiisa way weynaadeen oo qaar ka weyna qaarna way ka yaraayeen maxay dhahday asaga laba gabdhood camal ka yaray mid waa la guursaday mid kalena waxay dhahday intay guursatay iyadoo garoob iyo ay adoogi heesa iyo wiil ay dhashay ay adoogi heesata kalena waa la qabo oo meel kale lagu qabay saddex kalena dibadda ayay jireen oo marmar ay wax ku soo tuuri jireen oo adoog iyo waxaas ay biiri jireen duqa ayaa jirnay iyagana waxay tiri guriga waa isku dhownahay way inaga soo horjeedeen. waxaa dhacday tiri nolosheena markay saasta anigana uur aan leeyahay nolosheena ay maasha Allah too halkaas noo marayso baa waxaa dhacday gabar ay dhashay eedadiis oo ina nimanka weynaatay oo xaafada joogtay oo waxay tiri maadaama waxay tiri la soo wada qaxay dadka dhan goof weyn waxay tiri lagu markaas la deganaa oo familiga dhan mid wax adeer dhalo wax abti dhalo waxay wilo saasa loo deganaayo dhahday gabadha marka eedadiis dhashay meesha deganeed gabar weyn ahayd kodaa kule weyn markaas aan guursanay ahayd gabadhan iyo ninkan gabadha ayaa waxay waaba isjeclaadeen tiri ninka iyo gabadhan waaba isjeclaadeen dukaanka imaanaysa wax adeega iska dhigay maanta dhawaal isla jooga naagta iyo ninka waxay tiri waaba isjecliin ilaa aan war maba ka hayo tiri walaacayanahay naag iska xanuunsan oo loo walaacan iska ahay maxay tiri xitaa miiska sida kumihii waxay tiri waa ka tagaa sagan dhahay tiri sii gadgad mar gabadha waxay tiri shaqaalaha dhaha ay gadgad ilmaha si dhax seexanaya marka hawsha guriga qabato ayaan gabadha u sii diraa asagana la fiiriyaan dhaha waxay tiri ninkan iyo gabadha waxay tiri dukaanka ay taagantaa sagaashanka halkaas waxay tiri shaqadooda iyo hawshooda dukaansigooda halkaas ay ka wataanbo waxay tiri mar dambe waxaan dareemay tiri suuqa adeeg ka doonay adeegii waxa uu soo doonay oo miiska ka dhirmanaa waxay tiri way imaatay dukaanka u timidna waa la israacay tiri waxay tiri gabar ayaa waxay tiri soo wacday oo dhahday tiri maxaa hebel iyo heblaaya halkaas la joog maanta dhanaa ku dhahay war le isku dhuraayeen isku daldalaayeen xalana xagga isla fadhiyeen waxa shukaansanaa camal ay wakaayeen xiriir ma ka dhaxeeyo